waxa yani jariimada ama dilka uu geystay igaga sii daran Vincent cuqubada lagu ciqaabay ayadoo saas ay tahay ay wargeysyadu sheegayaan in Vincent jacketkiisa laga helay dhig sanka halahan hore iyo carabka yani jeebkiisa bidix ay ku jirtay oo intii uu cunay maahan intii ka soo hertay ay tahay qasada iigu la yaabka badneed balila arka qasadaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isku soo noqdo nagso walaaladeyda waana walaashin hodan channelka diga down soo channelkeeni hodan online haddaad nagu cusubtay soo dhow gacmo fura subscribe nagu dhiirigeli videoga aad uga jibna like fara badan saara like free mahano isaar like ta fadlan codsi waaye subscribe na saar haddaad wali saari qasadan saa aragtina qaybta commentiga ku soo sheeg run ahaantii qasadan marka arkay waa qasa ila yaabisay bal isku day please ina dhameysatid okay qasadan waa maadaama yani tafaasiilkeedu wax yar ay dheertahay laakiin waa soo kooba yani okay ila dadaal idinkan okay qasadan waxay ku saabsan tahay wiil la yiraahdo Tame wuxuu jiraa 30 sano ayuu jiray markii 30 sano ayuu jiray Tame wuxuu ka shaqeynayay shirkad kamida shirkadaha dalkaas Canada qasadana waxay ka dhacday Canada yani qasadan waxay dhacday 2008 qasa waxay ahayd yani Canada oo dhan gilgishay yani si kale ma ku fahamsay gilgishay Tame marka wuxuu u shaqeynayay shirkadaha travelka ayuu u shaqeynayay ahayd waxay isla shaqeynayeen gabar la yiraahdo Tiffany marka waxay jirtay 29 sano shirkada ay iskala shaqeynayeen Tame marka maadaama uu ahaa qof jecel inuu travel gareeyo dad ayaa jir hobbigood anigu ku anka inaan dhoofo wax meel la iska aado wareeg waa jeclahay okay laakiin jeebka ya ila dhaqaaleeyo waa okay intaas kaftan waa noo wada Tame iyo Tiffany waxay ka shaqeynayeen shirkadaha oo travelka laakiin maadaama uu jeclaa Tame in uu dhoofo ama se adduunka uu soo wareego Tiffany waxay ka codsatay inay gataan carnival kasaysan carnival daadan kasay waxa la wadamadan galbeedkan badan ku arka carabaha dadka jeebka ku san leen ka arka laakiin carnival waxa ay gaari wato musqushiisa jikadiisa sariirtiisa yani guri socdo oo luga loo yeelay afar adil loo yeelay عمل واي كرنفال كاس أي قتين أدونك ماهن لكن كندا يعني مال أي سنتجين ما أي سنجرين وحيكو قادة كندا أوردن إني وريجان Tame iyo Tiffany لابد سنة أي كندا أوردن كسو وريجان كدب لعقتي ياريدنا مركي كده ماتي Tame وحوجو أمية إنه النقطة مجالة أو Tame ودجنا هو يدي أبيه يجبر ولا شيء الله دلتي وحاوي إدمونتون قبل كألبرتا اللي يراهدو هذه السلام اللي يراهدو أيو دجني هاي أوكي Tame marka gabadhii saaxiibtii ahayd markuu ku yiri aniga waxa uu noqonayaa gobolkayga hadii aad i jeceshahay kaalay isoo raac markaas ku tiri maya aniga ma u socdi gobolkaas awalba adaa ka timaada yani ya wadada ku qulqul amal sidii ay xiriirkoodii ku kala dhamaadeen Tame wuxuu go'aamiyay in uu u noqdo gobolkiisi Edmonton oo hooyadii iyo walaashii familigiisa oo u laabto Tame marka lacagta kharashka uu haystay maadaama saas aysan u farabanayn waxa magaalada uu joogay ilaa iyo Edmonton waxa loo kala soconayay diyaarad flight haday tahay 2 hour kaliya hadii gaari ay tahayna 24 saacadood ayaa loo kala soconaya meesha uu joogay ilaa iyo Edmonton okay marka wuxuu jartay bas maadaama uusan awoodin tigitka yani waxay markaas ay kor u kacdo marar waxa jirto Soomaaliya diyaarado ay cirkad yihiin oo yani qof kiishka ku salaamay qofka luusan haweysanin inuu kor almeem qaali ay ku noqotay wuxuu go'aamiyay in uu iska raaco baska ayuu soo jartay tigidkiisa baska marka numberkiisu wuxuu sida wargeysadu ay sheegayaan 170 numberka baska ayaa ahaa yani basasku number ay leeyahay 170 ayuu ahaa baska numberkiisu tigidka marka wuxuu jartay ahayd 30 July 2008 markay taariikhdu ahayd wuxuu goostay ahayd baska ka baxay magaaladaas markii uu joogay 12 habeenimo ama se midnight ama se marka ay saacadu iskala
bedelayso oo 12 saqda dhexe ayuu basku ka baxay magaalada uu joogo ilaa iyo Edmonton wuxuu ku geeyaa saq dhexe yani hadda oo kale hadii subax hal saacad ka baxdid magaalada uu socdo bari subaxda hal saac loo tagaya yani 24 saac ayuu bas saarnaanay okay sidii baski asaga oo saaranteen baska marka uu saarnaa yani dad badan oo rukaab ama se rakaab badan ma aysan saarnayn waxaa la saarnaa oo kaliya basku wuxuu qaaday ilaa iyo 22 qof sida la qiyaasay laakiin asaga waxay ahaayeen 14 qof oo kaliya ay ahaayeen oo waliba 3 rag iyo oo team kamid yahay inta kalena waxay ahaayeen dumar yani shofeerka 3 rag inta kalena dumar ay ahaayeen yani shofeerka hadii lagu daro 4 rag iyo 10 dumar ay ahaayeen okay team markuu baski uu sii socdo muddo 17 saacadood waad ogtihiin basaska marka travel dheer oo yahay marka 5 saac 4 saac la socda uu istaaga bus stopka musqulaha la galaabkii wax cunaayo camal okay last bus stopka markii uu maraayeen time oo yani already 17 saacadood ay socdaan oo basku uu socdo ayaa waxa wiil Vincent Klein la yiraahdo oo 43 sano jira oo fadhiyay markii hore bilawga hore ama se baska qaybta hore ayuu fadhiyay ahayd baska marka maadaama laba qof ay tahay dadku maadaama aad u yaraan qof walba hal yani ayuu isku kala balaari iska seexanay adu yani free ayaa loo fadhiyay marka ninkan Vincent Klein la yiraahdo waa 43 jir ka soo haajiray dalka la yiraahdo Indonesia qaxootinimo isku dhiibay dalkaasi Canada oo citizen Canadian qaatay Vincent marka baska bilawgiisa ayuu fadhiyay ahayd kadib last bus stopki markii la joogsaday musqul iyo waxaas la galay tay marka wuu baxay waxbuu soo cunay ahayd kadib ayuu baski iska soo koray gadaash ugu dambaysa ayuu fadhiyay ahayd marka tay marka dhibku waxa keenay wuxuu fadhiyay dhinaca oo shubaak ama se diriishada agteeda ayuu fadhiyay ahayd oo lugaha ugu fitsaday marka Vincent uu soo socday sida laba dumar oo gadaal la xanuunsan doona laakiin ay sheegeen odaygaas oo Vincent markii uu xagga hore uu ka soo kacay yani qof saan ku fiirinay camal saan uu noo fiirinay yiraahdeen kadib suu u socday time agtiisa ayuu fadhiistay markii baski oo ka dhaqaaqay last bus stopki oo highwaygi already baski oo saaran yahay ayaa waxay yani laba dumar ay ahaayeen oo time markuu aniga agteeda saan intana labadii dumar ayaa ka fadhiyay marka Vincent markuu time agtiisa imaaday wuu kiciyay wuxuu ku yiri lugahaaga laabo inaan fadhiistaa rabay xaq u leeyahay waa ka laabanayso ma labadii dumar marka waxay yiraahdeen saa odayga marka arkaynay bay yiraahdeen oo yani already baski uu highwayga uu nala soo koray oo hal saac camal uu baski highwayga uu saaran yahay ayaa wuxuu bilaabay bay yiraahdeen asagoo hadlaaya yani hada soo kale dad waxa jira qof walba luuqado leeyahay Soomaha yani ayaga ahaan ma fahmayaan wuxuu Vincent oo leeyahay Vincent marka waa wiilka dili doona time wiilka qisad ku saabsantay dili doona way يعني sida uu dilayna waa arki doontiin laakiin waxay sheegayaan labadii dumar ee agtiisa fadhiyay team in odayga markii hal saac camal uu basku highwayga uu saarna yani waa ogtiin ma baska gaariga saan camal waa kursiga saan madaxa oo ugu garaacay ayuu waxbuu dhahayay bay yiraahdeen uu ku celcelinay hadalka waa isku daynay bay yiraahdeen inaan dhageysano laakiin waan maqli weynay muddo yar kadib markuu baski hal saac camal uu highwayga uu saaran yahay ayuu Vincent wuxuu la soo baxay bay yiraahdeen mindi wuxuu ku qabtay time oo dhinaca shabaag ama dhinaca diriishada fadhiyay uu ku celceliyay marka qof adoo tusaale ilaahina ma noo ka soo hurudid oo xanuun la soo kacday ka waran time marka wuxuu isku dayay meeshii uu fadhiyay inuu soo kaco uu ka soo duulo yani ka soo talaabsado hada fiiri ani inta fadhiya inta waa kursiga igu horeysama saa aan u jiifay ka waran wax lay kugu imaado isku dayday inaad kursigan ka boodid waaba ka booday laakiin wuu kufay aheedo mamariga ama se meesha yar la mar basaska dhexdeeda ayuu ku kufay aheed ninkii Vincentna way u fududaatay inuu time ka daba tago maadaama uu fadhiyay geeska waa uu soo qabtay waa uu ku celceliyay marka dadkii baska joogay waa ay wada qayliyeen hal mar ayay yani
fiirin camal u wada qayliyeen ninka bus driverka ayaa loo qayliyay wuxuu isku dayay inuu istaajiyo laakiin ma istaagi karo at least xataa qofka marka uu saaran yahay highwayga xataa waxaa jirto sectiono loogu talagalay oo yacni mararka oo qofka emergency-ga oo istaagi karo laakiin emergency-gu meel walba ma ku yaal meelo khaas ah ayay leeyihin almuhim in uu baska istaago waxay ku qaadatay sida ay tilmaamayaan wargeysyada 17 daqiiqo camal yani markii qaylada kow ay bilaabantay oo time mindida lagu bilaabaybo ilaa basku ka istaago 17 minute ayaa lagu qiyaasay baski marka la istaajiyay dadkeeda qof waliba nafsadiisa ayuu la ordaya time marka wax dhaqaaq ah ma uu saleen because bilaawgi ilaa 4 sida dumarku oo ay markii la wareysanay ay sheegeen ilaa 4 jeer asooba already jugtiis intuu ku qabay markuu talaabsadayna la soo qabto kufa la soo qabsado lagu celcelinay time wax dhaqaaqa ma uu saleen dhaheen markii aan baska ka degeynay sida ayaa baska laga degay bus driverki marka wuxuu sameeyay inuu baski ku xiro yugo xira time iyo Vincent oo gudihii time yani dakum kaga dhigay si kalmku ka saysan marka wuxuu sameeyay sida ay sheegayaan horta qoorta uu ka qaatay yani qoorta uu ka qaatay fahamsimo laba ka kala dhigay yani qoorta uu ka jartay kadib markaasuu intuu qoorta soo qabtay sida filmaanta horror miya aan dhahay anaaba isku nax marka dhageysan aan inoo waday timihii ama se yani shacarkii intuu saan u qabtay ayuu tusay daaqada ka tusay baa leeyahay kadib ninkii waa uu foorsaday wax dhaqaaq shaqad iyo hugun waa laga waayay wuxuu ku maqnaa marka يعني ويلكا أما سه تايم وحوكد بصل جرجرة ما كرميسان يعني عظامك أما سه لفتي لو جرجرين ما يعني وحي هيلي بقف بني آدم جرت اسمه سكوي عليه بصل عمله وجرجرتي أوكي إن مركي وفرري وحلا جواي بوليس كلو عينتو بوليس كمركو يماذا أو فينسنت وصا استاجي يعني بوليس كمقت هلاو سان ولها وجرجراها هلاو إن وح محليا توشك وكو افتينا مع المهم فينسنت حصوقع أصوغو حالهاس مدد إنو يعني قف فيمتا أفكا لقالي عمل أيو لقا وصو استاقي وحو اسكو ديين ماركا بوليس إناي باي فورس كو قابتان المهم والا صو قابتاي بوليس ستيشن كا أيا لقيه جاكديسي ماركا لقا سيبا أيا وحالقا هلا إيهاد سانكان إيا هالدق إيو عربكا أو فينسنت وجرا جيبكا waxaa kaloo laga waayay ay ahayd time beerkiisa marka waxaa loo badiyay Vincent inuu cunay beerkii time markii uu fooraro ku maqnaa inuu beerka cunayay ayaa 100% la cadeeyay almuhim waa la maxkamadeeyay marka lagu yiri maxay tahay waxaan aasuubisay wuxuu ku jawaabay aniga ninkan ma garanayo wuxuu iyaan ama se wuxuu iga haleeyay ma jirto laakiin ilaahay ayaa i amray markaas lagu yiri ilaahay how xuyir aniga dhagaha ayaa la igu sheegay inta aanan baska soo korinbo mindida waxaan u soo qaatay in aan isku protect garay because ilaahayga ayaa ila hadlay oo igu yiri baskaas hadaad fuushid waa lagu dili doonaa waxaad isku daafacdid si diyaarso alxamdulillah ala ni'matil islam aan inoo wada sidii ayaa mindida u watay weeyay ninkan waxba igu muusameeyay laakiin waxa dhigta la igu sheegay ninkan inuu idil rabo markii intuu soo idilin waxaan go'aansaday in aan aniga dilo kadib Vincent waxay maxkamadu ay u aragtay ninkan inuu aqliyan uu xanuunsan yahay waxa loo diray dhakhtarka masax aqliyada ama dadka waalwaalan lagu haayo muddo 3 sanadood 3 sanadood kadib marka uu ka soo baxay hadii uu qofkani caafimaado qeyr hadii uu caafimaado waa masaxada ama meesha qaybta oo madaxa dhimirka in lagu celiyo tay marka 3 sano ee loo qabtay ma uusan ku caafimaadin wuxuu ku caafimaaday 7 sanadood markuu jeelka ama se jeel ma la kare hospitalka dadka waalwaalan lagu haayay ayuu ka soo baxay waxaan lagu xukumiyay inuu ninkani ahaa qof xanuunsan fiiriya inuu ahaa qof xanuunsan oo yani mariid aqli oo waxaanu suubinayo dhanba wax uu ka ogaa afar aduun aysan jirin marka time Vincent waxa laga bedelay jinsiyadii waxa laga bedelay magacii waxa laga bedelay everything recordkiisa xataa qof hadda cusub ilma hadda dhashtay amal ayuu ka record yahay who knows inuu meelahan wareegayo Allahumma najina ya rab marka waa kaas ma istaahila marka ninkaas ciqaabtaas qof bani aadam saas uu buday oo cunay xataa in yani waxaas loo xogay aniga ahaan caadil ma ila ahaan adisay kula qaybta commentiga ku soo sheeg I hope waan dadajinaa because marbi inuu clipku idinku dheeraado idinku dheeraan karaa laqdaya igu qaata أنا ولا شيء هذا like farabadan saara siin share gareeya
qaybta commentigan hayga hilmaamina ra'yigina dhiirigelintiina ma sha Allah ilaahay khayr hay badan haydin siiyo subscribe hadaa saaran walaal iska saar inta aan ku kulmeeno